xildhibaan daar amiin jeeso oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo wareysi gaar ah siiyay idaacadda maanta Muqdisho ayaa baaq u diray beelaha ku dagaalamaya gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya in ay dagaalka joojiyaan oo ay nabad qaataan. xildhibaan daar amiin jeeso ayaa ka dalbaday beelaha shalay ku dagaalamay gobolka Hiiraan in ay joojiyaan dagaalka oo ay nabad qaataan si loo gaaro xasilloonida gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. walaalle dagaalada maanta ka dhacay beledweyne waa dagaal nasiib darro ah, dad walaalo ah, ahal iyo qaraabo ah, abti iyo eesin uusa ah ayaa meesha ku dagaalamay. waxaan ka codsanayaa inay joojiyaan dagaalkaas. dagaal khasaare ayaa laga faa'iiday, dagaal khasaare unba laga faa'iidaa, sidiisaba dagaal faa'iido ma laha. keliya waxa faa'iidiisu ay tahay in la barto dhibaatada uu leeyahay. soomaaliyana horyay soo baratay oo dagaal dhibaatada uu leeyahay. saacadan way dhamaatay xilligii qabiil iyo qoys la isu dili lahaa, xilligii wax lagu baratamayay horumarka, wada noolaansho wacan iyo dhaqan suuban xilligeeda la joogaa. dhalinyarta qoriga xabada ay ugu jirta labada dhinac ma isdagaal. waxaan leeyahay dalka kan waxaad tihiin destinationkii soo kaci lahaa, beri hogaamin lahaa, horumarkiisa tufaani lahaa, dalkaas iska lahaa tihiin. qoriga xabad ka bixiya. hadalka daar amiin jeeso ayaa ku soo beegmaya xilli shalay laba beelood ee walaalaha ay wada degaa gobolka Hiiraan ay ku dagaalameen oo ka tirsan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. dagaalkaas ku dhintay in ka badan 10 qofood, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. waxaana hadda soo baxaya baaqyada isdaba joog ah ee loo jeedinayo beelaha shalay ku dagaalamay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, balse dagaalkan ayaa salka ku haya aanooyin qabiil ee beelahaas hore u dhaxmaray.